MSN-ka isticmaalkiisa. haddaba markaad u baahantahay inaad saarato sawir halkan waxaad u baahanaysaa in sawirka marka hore uu ku yaalo desktop-ka ama my documents, my pictures iyo meelo kaloo la mid ah. haddaba folderka uu sawirka kugu jiro ayaad marka hore qalbiga ku haynaysaa adigoo aadaya tools waxaad kasii aadaysaa change display picture. haddaba change display picture markaad taabato waxaa soo baxaya box ama daaqad yar oo iyadana ku weydiinaysaa inaad xulatid sawirada soo socda. markaad taabatid display picture boxkan baa kuu soo bixi karaa. boxkan haddaba waxaa ka xulanaysaa sawirada halkan ku xusan kii aad ka heshid ama kii aad iska ka anfaca. maalan sawirkii aad taabato halkan ayaad ku arki kartaa isagoo waafiya. haddaba haddii aad doonaysa in sawirkaaga desktop-ka ku yaala aad saaratid MSN-ka waa inaad aadid browse oo halkan sawirkan halkan kaga aadan qaybtan hoose. browse wuxuu ku siinayaa ikhtiyaari ah inaad sawirkaad doonto aad saaran karto MSN-ka. markaad browse taabato waxaa soo baxaya daaqadan oo ku weydiinaysaa sawirka halka uu ku yaalo. halkan waxaa ku qoran my pictures oo ah directly MSN-ka default folderka uu sida tooska ugu xiran yahay MSN-ka oo ah my pictures. haddaba sawiradaad waxaad keensan kartaa my pictures adigoo aan iswereerin ama waxaad ka raadsan kartaa qaybtan kale oo desktop. isla boxkaas waxaa kor uga qoran selected display picture. haddaba wuxuu ku weydiinayaa boxkan inaad sawir xulato, matalan sawiradan midkaad doonto. tusaale waxaan usoo qaadanaynaa OTE logo. haddaba OTE markaad dhagsiisad waxaa u baahantahay inaad taabatid open ama select. opinta markaad taabato waxaa kor halkii haddaatay sawirada ay ka muuqdeen waxaad ku helaysaa sawirkii aad hadda soo xulatay. waxaa kuu dhiman inaad taabatid okay. intaa kadib MSN-ka qaybta sare u eeg waxaad ka arkaysaa sawirkii aad xulatay hadda oo saaran. haddaba ugu weyn halkan aad ku qoran kartid qoraalkii aad doontid adigoo aadaya options. halkan aad ka bedeli kartid qoraalka ku qoran oo aad kii aad doontid ku dhigi kartid. show song information from Windows Media Player waxaa micnaheedu tahay waxaad dhegeysanaysid qofka online-ka kuwa uu kula dhegeysan karo. haddii optionkan aad ikhtiyaarigan haddii aad jeeg saarto wuxuu u fududeynayaa dadka online-ka kuwa ama aad la sheekaysanaysid inay kula dhegeystaan waxa aad dhegeysanayso. waxaa inoo xiga qaybtii hore aan ku soo marnay iyadana in fariimaha ku yaala MSN-ka hotmail-kaaga fariimaha ku yaala aad halkan ka ogaan kartid tiradooda cadadda ku taala. laakiin si aadan ka ogaan karin wixii aad hore u akhrisay maadaama ay yihiin fariimaha aad furtay laguma xusi karo halkan. waxaana halkan aad ku heli kartaa file tools action dhammaantoodba, laakiinse halkan ayaa kaaga fudud. matalan sidoo kale waxaan hore usoo marnay inuu aad contact halkan ku jirto. sidoo kalena halkan ay iyadana ka mid tahay buttonka balaaska inaad taabatid kadibna aad darsid qofkaad doontid. halkanna ay tahay halkii lagu raadinaya magacyaasha kugu jira MSN-kaaga. halkan waxaan ku fahnay in sawirka MSN-ka aad saaranaysid aad xulan kartid halka uu kaa xigo. sidoo kale halkan waxaa ku xusan ka bixista MSN-ka oo aad halkan sign out ka helaysid from here. sign out from here waxay la micno tahay kaga bax MSN-kayga halkan computerkan ka bax. sidoo kale waxaa ku xigtaa appear offline oo ah isqari adigoo online ah laakiin dadka kale aanay ku arki karin. appear offline haddaad taabato MSN-ka waad ku jirtaa laakiin dadka kale kuma arki karaan. away laakiin waxaa la ogaanaya dadkaas waxay ogaanayaan inaad maqan tahay laakiin aad joogtid computerka uu kuu shidan yahay. available-na ay micnaheedu tahayba waa xaadir qofku inaad adigu xaadir tahay qof kasta aad la hadli kartid. busy-na aad mashquul tahay oo aad doonaysid inaan hadda lagula hadlin. intaas waxaan ku fahmnay in sign out halkan aad ka heli kartid oo aadan raadinaynin. MSN-kii horena waxaad ikhtiyaari fudud ku haysatay in sign out uu
file sign out kaga jiray iyadoo close hadaad tiraahdo oonu MSN ku xirmaynin iyadoo ay ka fududahay close inaad taabatid adoo aada halka saacadda MSN halka saacadda computerka ee hoose tiir hoosaadka adigoo dhahaya right click exit taasoo aad uga fudud sign out iyadoo la mid ah laakiin sign out waa bahda waxbarashada ee Cumar Teacher Education Center oo idin soo gudbinaysa cashirkan maanta iyo cashiro fara badan oo idin xigi doona insha Allah.